arrintan ayada maarta caawa meesha ka dhacday waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhallinyaradii soo abaabusay ee ka shaqaysay ka danqatay dhibaatada haysata dalkooda iyo dadkooda haysata ka danqaday ayaan aad iyo aad horta mahad weyn u celinayaa waana liawal mara aan maqlaaya ama intaan soo joogay magaalada aan arkay dhaqaaq sidan oo kaleeta oo u istaageen dalkooda si niyad leh oo daacad leh oo wadaninimo ah oo xisa qof walba maanta uu dareemay inuu dalkiisa dhibaatada ku jirta uu qayb ka qaato u istaagay walaalaha iyo Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato walaalayaal waxa way dhibaatada Ilaahay ha naga qaado dhibaatada adduunka kaliya ma haysato annagoo dhan baynu wada haysataa xanuunkeena hayo waa xanuunkayaga ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dhibaatada dalkeena iyo dadkeena haysato inuu naga qaado oo niyaddeena iyo quluubteena iyo qalbigeena uu isu furmo oo niyad wanaagsan aanu waddankeena aanu u aamino oo aan dalkeena u aamino oo dowladdeena u aamino oo jiritaankeena iyo midnimadeena Soomaaliyeed aanu u aamino intaas ayaan u diraya waxaan leeyahay ilaahay ha naga qaado ilaahay ha naga qaado ilaahay ha naga qaado ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu ducaynaynaa dhammaanteedu haddii aan nahay mid yar iyo mid weyn oo ku nool dalkan qadan ku nool inaanu idinla qabno dhibaatada inaanu idinla qabno oo ina keligii dhibaatada idinaysanin ee aanu ka seexanaynin had iyo jeer habeen iyo maalin aanu u taagannahay sidii aan waddan taageeraa ee garab ah ama gaarsiinta adduunka ama meel walba sidaan idinla qaban lahayn ayaanu dalka idinkama maqlin waa idinla joognaa culayska idin hayana waa idinla qabnaa aadaan u mahadsantihin barnaamijkan sabqaadisi in muddo socday waxaana ka qayb galay mataqaanaa haween badan oo ka tirsan haddii ahaan jaajiyadda haddii ahaan safaaradda iyo annagoo ah midowga dhalinyarada Soomaaliyeed ee Qatar oo urur dhalinyaro iska qabtay una taagan sidii ay uga shaqayn lahaayeen mataqaanaa isku xidhka bulshada Soomaaliyeed dalkan ku nool haddii ahaan lahayd qaybaheeda kala duwan runtii barnaamijka waxaa soo qabanqaabiyey oo si toos u soo qabanqaabiyey safaaradda iyo jaajiyadda iyo midowga dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa sidoo kaleeta qayb ka ahaa oo noo suurtageliyay inay mataqaanaa la siiyaan hoolka aan ku qabsanay mataqaanaa barnaamijka hay'adda qanaad oo ah Islamic Central Qatar sidoo kaleeta waxaa nagala qaybgalay oo nala joogay hay'adda khayriga ee Qatar al-Khayriya oo ayadana jaanibka mataqaanaa xafladda oo suurtagelisay inay mataqaanaa naga qaabisho dhanka mataqaanaa caawimaad inay naga qaado ay geyso dadka Soomaaliya ku dhibaataysnaa runtii barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij mataqaanaa si iska qabsaa marka hore ku bilowday si alxamdulillah waana noo qabsanay waa waqtigii shabaabkaas oo kacaya jiilka cusub waxaan Ilaahay ka baryayaa inay noqdaan jiil bedela ummadda وجه مشرقة وجه فرن وقرح بدن قار ومدة وبدلة قار ديانين كسر بحان إلهي سبحانه وتعالى طريق وناسنا حقا مدة مريا هو جامية بشوش فيه صواقه كسر الإبكية قحك إلهي نقول إن شاء الله هو أساسه بدون إلهي نقول هذه الصومال ولا له يجي الصوماليات وطنك كنا ولا رسالة أدري وحوي قبل كل شيء إن يجوجيان حبد يدقالك على الحمد خلافات إن يجوجيان تاس أي هرت أمهم سن ماشي نبدأ اعتماد أي خيرك ويماد نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مركو إلهي بريني wiilkiisi Ismaaciil oo yar iyo hooyadii markii uu Makka kaga tagay on cidi joogin wuxuu yiri rabbi jcal hada albayt aamina warzuqhum min athamarat marka uu horeysa wuxuu Ilaahay weydiistay subhanahu wa ta'ala Ilaahay gurigan meeshan inuu amni uu ka dhigo marka dabadeedna arsaaqad Ilaahay inuu ku arsaaqa ayuu weydiistay waxa weeye runtii hadii aan amni la helin nolosha bani aadamka ma sii socon karayso xaqiiqdii ma socon karayso ninkii xoolaha haysta ma cuni karayo oo kaan xoolaha haysanin ma noolaan karayo bani aadamku oo isku wada nool yahay mid wax haysto oo loo shaqeeyo iyo mid aan wax haysanin oo shaqeeyo ayuu ku nool yahay bani aadamku ilaahay baa ugu talagalay subhanahu wa ta'ala arrimaha inay adduunku sida u sii socdo laakiin haddaanu amni jirin wax haba yaraatay socon kara ma jiro laa nin taajir aan noolaan karin wala mid faqiir aan noolaan karin adduun iyo aakhira la'aan baana ka dhacayso ilaahayna subhanahu wa ta'ala arrintaasi
موقف عدو كاستاغ روح إسلامك الدلياي oo naftiisi u qoonsanay intuu xabad ku taaga oo nafta ka goynayay ilaahay agtiisa wax weyn buu ayuu ka kasbaday oo dambi ah ilaahayna wakiil subhanahu wa ta'ala ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أنت وعيد أبو إله ازدبدغي روح مسلم أدله وحان ليه ورديق هل جوجي دائية وردباتذا يدقالك هل جوجي والخلافاتك هل قتل والإلهي هل نقضو أن وتاسان ليه والسلام عليكم ورحمة الله حد ريني سأدقو إنك ولا الله دي الصومالي لباقسنا وحد كري سوى دري حقيقة وحوية وحبنا آذن وكفرحة إنه قف ولالكي أو قف يهودية وهي لغاية وإنه كنا حضو دينتين ونفريس إلى نساعدين فما بالك واحد من أبناء جلدتك وهو ليتم مركز وحضرته وحوية فرح عظيم وقفك بنا آذن في جهلك وقودا ما يساء وفرحوا يتفرح يساء ودينيسا هذا نوار وقفرح سنة هاي وحكرا لما هذا مقنيا لمان dadka soo qaban qaabiyay arintan ayaan aad ugu mahadnaqayaa oo aan hore uga dhici jirin halkan wadankan joogno fa waa shay عظيم جدا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله ما تجد فرحانة أنا فرح صحيح لأن قطر الصدام يعني من مركز كل شيء إلى الآن ولقي معنا صومالي واجتماعا وصومالي إيرباني عاويان أرجو الله عز وجل يعني مواضيع دان وكله يعني برامج دان وكله إني دائما صوته بس أنا أفرح صناعي وحمدي كروات أصوي وحن جعلان لها صومالي إني قرتان هل لين هل عرق هل دين أنا مسلم وليتقوا الله عز وجل وطن كانوا أجمل وطن أذكر إحدى الوزيرات المرة عن one of the ministers عن سبحان الله مقابلة عن الله هذا وعلى هذا صومالي حكوا صفتي the paradise الجنة فجنة صنع إلهي أنت كعب صنع فلنتقي الله وطن كينا عن سرورنا عيبتنا أنا أسطرنا ولا أنا عدو جينا أن ينقع عقل بطني